tiigsada asaagiin Soomaalidu tahay guul tiigsada asaagiin Soomaalidu tahay guul halkii aad ku toostiin kuma turontahan tuur goolka tuur shabaqana ku toosi 1 2 3 4 goal taageera badan baan ahaan garabkiina taagan farxad guud le kala taga 1 2 3 4 tiigsada magacaygu waa Cali Yare Gaani gudoomiyaha kooxda Göteborg Sweden waad ogtihiin dhowr sano kulay ka soo qayb galnay ciyaarahan muddadii 10 sano ee ugu dambeysay alxamdulillah waxaan rajaynaynaa ciyaar wanaag in ay soo bandhigaan dhammaan kooxaha ka qayb galayo maxaa la dhahay turneerinka waan ku rajo weynaa sanadkan inaan meel fiican ka dhimaadno adoo og aftirkaagu mislada waa qaadaysi sanadkan waxaad la socotaa inaan sanadii ugu dambeeyay sanad kasta semi final iyo final imaan jirnay marka sanadkaana dhalinyaro cusub aan wadnaa waan rajaynaynaa inaan meel fiican ka dhimaadno waxay la taagan macallinkii Göteborg oo guusha maanta ay ku raadacday 3-0 asigoo markaa ka badiyay wadanka Norway haye magacaaga adigoo ku bilaabay marka koowaad Maxamed Faarax Maxamed waa tahay Maxamed Faarax sidee islaadahay ciyaarta galabta haddii ay ku fududaad iyo haddii aad kaadba inaad ku gayso 3 gool iyo eber والله horta ciyaartu rag meesha ku tartamo inuu baabadinaya laakiin talentideena iyo ciyaartooydeena wanaageeda ayaan ku tashanaynay insha Allah taala waana ka guuleysanay 3 eber baan ugu guuleysanay waa tahay Maxamed sida aan ognahay ciyaaro badan baa dhiman hadiyo badan baa la arkin waxa ka dambeeyay ciyaaro badan shalayta furitaanka ciyaar baa dhacday naadiyada ciyaaraha ama wadamada qaar islaada ilaa hadda ciyaaro kale ayagana soo bandhigeen adigoo kale ayay yihiin markaa xataa والله كل كوحدة قرن يا أبو دو كلنا إذا أربعة سلينا وحنو كله هلنا لنا إذا واتهاي ما دام عاد ودك اعتمادام ودك يوتيوبر إن مقالدي سادقنتين سيو ورقة ستوك هولم سودوين تدي عيارات هذه أبوهم بلينا ذاك ستوك هولم جوجا هذه يدركون نص سودوين ومقالة أدو في عن سودوين ترى أدو في عن وأنا كم هذا علين النتاس واتهاي وحى عامل ستة كوب كقادتان كيس إنها هند دونتو يوتيوبر إن شاء الله تعالى إن شاء الله بقول كي بقول إن شاء الله تعالى واتهاي سوديار جروجين السنة كان ما دام السنة كده وعسوق قارتين سو فينال سيداي كولا مقطع حاسة أتكتر السنة كمان قادنا واحد بدنا أيها إسكب بدل السنة كهري السنة كان عيارتوي بدنا عصبة أو يريان هلني عيارتوي كلنا وينجي يرد غوبين حدنا وحنكون تشرنا إن شاء الله تعالى ما دام التالنت ذي عيارتوي ذي أنا وكون تشرنا وحنرجعنا إن شاء الله تعالى إن نقوش قادنا إن شاء الله تعالى واتاي كاسوحو محمد فارح أو مركا هاي يوتيوبر أو ما أنت قوش يكون راعي 3 إبر وما سنت محمد هذا قامود ما سنت دماتي وما سنتين kusoo dhawaada barnaamijka waxaan rabaa inaan ku hormaro Rashiid dabcan kusoo dhawaaw Cabdishakuur waxa tahay ama teamka aad wadatid oo ka socda dalka Denmark barnaamijkan furmay sidaad u aragtaa maxaad sihay fakarkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركور وحسلامة يا سومالي جنال فرصة قالية مرول بوتاجين إنه سوق بيان أمد الصوماليات ومنطقة مرول بوتاجين سبورتس كان بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحكي سعودة ودك الدنمارك وحا قدومية واحدة وداني إن شاء الله وحا رجينا إن صوبي عيروناك يوم تقنا إن شاء الله أنا كقول سنة كوبكا. ويا هو صلى الله بريا إن سبورتيجي أيام ربنا كور مرة بشير شيء أيارهن إن سادالين أيام ربنا بالمركورة إيران كهذا إن مدام أتهاي قبرت بدنا أدولة الرمهاني إن يي كلها هاي سادالين تو إني سنة كان كقول يسون دون تمركات كوحها ترتميات كهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كواد مركز لبعض بوحومات علنية أديكو بشير إيو TV-ga Somali Channel isla markaas sidoo kale saaxiibka Seef oo mar walba u taagan mataqaana horumarinta isboortiga meel kasta ee isboorti lagu qabanayo tan labaad ay weydiisay su'aashaadii kullayba ciyaaraha hadda maanta furmeen cidna ma saadaali karto kooxaha waa adag yihiin aad u adag yihiin 14 kooxood ayay weeye waana adag yihiin runtii waxa la saadaali karaa roundiga labaad marka uu gaaro laakiin annagu haddaan Sweden nahay waxaan leenahay ciddii farsamo iyo ciyaar wanaag la timaada ha guulaysato
taasaan ogolnahay anoo ku hadlaya magaca xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo kaygaba waxaan leeyahay cid kasta mataqaanaa la timaada farsamo iyo inay ku guulaysato. aad ma santa jeeyo ku soo laaban doona gudoomiye ku soo dhawaaw maxaad dareemaysaa sidaas oo aragtay bismillaahi raxmaani raxiim magacayga horta waa Yunus Galbeete odayaasha degan magaalada Stockholm waa mahadsantahay Somali Channel iyo Bashiirba runtii cayaarahan cayaaro ilaa iyo 12 sano socdo waaye cayaaro qurux badan waaye aniga maadaama aan reer Stockholm ahay taageero cad ahay waxaa la jira kooxda qaran ciyaarteedu ay socdo ciyaarta socdo waxaan jeclaan lahaa inay koobka ayaga qaadaan insha Allah waayahay lafkeena saxaafadu kaba marnin waayo ku soo laabanaya waxaan rabaa isagana inaan siiyo qaybta Cabdiqani adigu gudoomiye ku soo dhawaaw reer Stockholm tahay yaad hoosta ka wadataa kooxaha ciyaaraya markan ka hadleen bismillaahi raxmaani raxiim awalan ilaahay waan mahad celinaya marka xigana idinkan idin mahad celinaya TV-gina anigu kooxaha midna lama jiro laakiin dhammaan guud ahaan quruxda ay u socdaan ayaan taageersanahay waana runtii wax lagu farxo sanad walbana way dhacaan ciyaarahan midda kale waxoogaa expertan ku ahay oo dhowr sano ayaan gudoomiye ka soo ahaa marka qoladii ciyaar wanaagsan ayaan maaragtay hoos kala jiraynaa insha Allah waana taageersanahay in ay nabadgelyo ku dhacaan waxaan kaloo mahad celinayaa nimanka asxaabta ah odayaasha ah ciyaartoydii hore ah oo nooga yimid dibadda iyo dhammaan martida oo dhan waan mahadsantahay waa soo laaban doonaa barnaamijkii qaybtii falanqaynta iyo ciyaaraha marti sharaftii kala duwan ayaynu ku guda jirnaa si qaybaha dambeeto aan u dhammaystirno daawadayaal barnaamijka isla markaana ay doodu ay noo soo socoto waxaan jeclahay inaan qaybta kaleeto aan ku wareejiyo wariyaha Somali Channel qaybta isboortiga Sayf ama Cabdirasaaq Sayf sidaad u taqaanaan kana yimid London ayaa inoo sii daadihin doona Bashiir aad ay u mahadsan tahay waxa arkaysaan waa ciyaartoydii Soomaaliya qaranka dadkii ugu magac dheeray Maxamed Ismaaciil Cali iyo Bashiir Jeeyo oo ahaa laba ciyaartooy barasamaadkii nambarka 11 iyo nambarka 10 Bashiir wadankan uu degan yahay Maxamed martiyo ku yahay wuxuuna ka yimid UK Maxamed sidee u aragtaa ciyaarahan maadaama aad timid hadda ka horne maxaad isleedahay wax qabashadooda sideen kula muuqdaan bismillaahir rahmaanir rahiim Sayf aad baa u mahadsantahay Somali Channel cameramanka wariyaalka Bashiir iyo Sayfba aad baa u mahadsantihiin fursadda qaaliga siiseen anoo hadaan su'aashaada ka jawaabo horta ciyaartu waa maanta furitaanka aniga Maxamed Hanad muddo badan baan runtii ka maqnaa mana saadaalin karo runtii laakiin kulleyba waxaan jecelahay kooxda la timaada ciyaar fiican meesha doonto iyo wadan kastaba meesha doonta ka timaado in ay ku guuleysato kooxdu ku guuleysatana waa waxaan baleenayna waxaan leenahay mabruuq baan leenahay kulleyba kooxun baa ku guuleysanaysa muhiimadda ugu weyn in la isbarto in la saddex galo in ciyaar fiican oo dadweynaha ka soo qayb galay Soomaaliyeed hooyooyin iyo hablo yaryar iyo odayaal iyo dhalinyaraba la isku yimid iyagoo raaliya labada wiigi ciyaaraha socdaan in iyagoo ku qanacsan inay noogu dhamaato Ilaahay ka bariyo adigoo message u diray dadweynaha daawanayo sidee lagu heli karaa xilligiini adigii Bashiir ciyaaraysan ciyaartoydii lamida in ay wadanka Soomaaliya dib ugu soo laabato sida oo kale kullaba Soomaalidu qurbaha aad baa loogu badan yahay runtii Soomaali badan baa ku nool dhinac kastaba ilaa iyo North America ilaa Australia iska daaw Europe Ingiriis iyo Sweden waa la badan yihiin ciyaartoy badan baan leedahay laakiin waxaan rajayn lahaa in la hawlgeliyo oo macnaheedu wadankoodii barito sidii ay uga qayb gali lahaayeen sidaan anaga shalay anagu waa ka nasiib badnayn dad wadankooda ku nool baanu hayn shalay laakiin iyaga qorbay ku nool yihiin anaga saasan ku dhaanaa uga nasiib badnayn kulleyba way joogaan waana Soomaali magacii Soomaaliya wataan in iyaga laftooda haddii la heli karo ciyaartoy fiican oo maanta magaca ummadda Soomaaliyeed ku ciyaaraya in laga faa'iideysto iyada lafteeda ma sahlana shaqo badan bay u baahan tahay dadka u xilsaaran bay u taallaa kolley sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen aad ayaa u mahadsan tahay Bashiir haddii aad leedahay marka aad wadamada Afrika la ciyaaraysa magacyadiina waa ka muuqdeen Soomaaliya markay maqlaan inay la ciyaarayaan sidee isleedahay taasoo kale dib ay u soo noolaa kartaa runtii waxay ku soo noqon kartaa oo kaliya in dhalinyarada yararka la soo barbaariyo oo 7 jirka ilaa iyo ay ka soo gaaraan ay ka baaluqaan laga shaqeeyo oo sida aniga Maxamed oo kale aan ka shaqeyno laftigeena runtii waa wax fiican waaye waxa lagu keeni karo waaye isla markaasna wadanka hadda soo fiicnaanaya wadanka hadda soo fiicnaado waxa loo baahan yahay in nin kastaba xaafadda ku yimid oo dhiso
uu qalab u geeyaa uu mataqaanaa tababaryaal loo suubiyaa oo wax walba maaragtay oo facility loo suubiyaa haddii taas la helo waxaan aaminsanahay in ay ciyaartooydii annaga barisamaadka haddaan nahay kuwa naga fiicanba soo bixi karaan waa mahadsantahay aad ayaa umahadsantaha waxaa noola jooga mas-uul hore oo isboorti cabdinaasir saciid sayf oo cabdidheeg ah cabdidheeg waxaan ognaa cayaaro in lagu qabto waddamada yurub iyo meel kastoo adduunka ah waxaan inta badan soomaalida ay ku tahaan sidee loo soo celin karaa midnimadii soomaaliya iyo awooddii qarannimo sidee kuula muuqataa adiga maxaase ka dhihi lahayd بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وفرصة قالئة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض سبورتيغا ميل كستي جوغان غداها iyo dibadda waa salaamaya especially qaasatan Somali Channel oo fursadna siiya Bashir Yare iyo tafatiraha sboortiga Cabdirasaaq Maxamuud Afrax Seef oo u taagan ummadda سبورتيga sidii loo midayn lahaa iyo horumarka barnaamijyadana ka hadla inta badan fursadan anigoo ka faa'iideysanaya marka ugu horeysa iyo marka labaad iyo marka saddexaad bahweynta sboortiga Sweden qaasatan Stockholm waxaan rabaa anoona iga ahayn mujaamalo in aan u mahad celiyo sida ay isugu duuban yihiin odayaashooda dhalinyaradooda la jiniskii hore dadka ku nool waxa kaloo aan rabaa in aan u mahad celiyo dadka isku xilqaamay waxna bixiyay sanad walbana inay dhacaan ururka Zuki iyo dhalinyarada oo aan rabo in aan dardaaran kaliya 14 kooxood waaye waxaan ka codsanayaa guddiga in laga dhigo 16 kooxood oo lagu soo daro community-yada dariska nala ah ama carabta ha noqoto Eritrea Ethiopia dadkan halkan nugula nool laba jaaliyadood in lagu soo daro oo laga dhigo 16 si loo qurxiyo annaga kaliya aan noqon loo badiyo taas waa iga dardaaran hadaayay message ayaan diray waan si kaleer gareynayaa waxa waaye dhalinyaradii koobka qaada waxaanu diyaar lanahay in aanu geyno dawlad khaliij annagoo isku duuban bahda sportiga Sweden in aan geyno Abu Dhabi iyo Doha waxaana sidaa u yeelaynaa in la soo celiyo sida nimanka halkan aad ka muuqdo legendskii Soomaaliya Bashir Jeeyo Maxamed Ismaaciil dhalinyaradana in taariikhdaas looga sheekeeyo sida la ahaan jiray kooxihii Zeere Aada say ahaan jireen dadkii calanka matali jiray waa mahadsantahay Seef waxaan leeyahay ciddii koobka qaada ballanka waa naga go'aya insha Allah taala wassalaamu calaykum waa tahay waxaa kaloo garabkayga jooga Cabdiqaadir Yuusuf aad taqaanaan oo ah gudoomiyihii Somali Week iyo Bila Cali oo ahaa naadigii madbacadda ciyaartoydii ugu cadcadaay sidee isleediin ciyaarahan way u socdaan maxaase u rajaynaysaan bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan marka hore u mahad celinaynaa Somali Channel oo mar walba isku dayda inay horumarinta sports ka qayb qaadato gaar ahaan wariyaha Seef ma aha markii ugu horeysay halka imaano waa Sweden waa hadaan dhahno waa hooyadii amba maamadii oo sportska ee qaaradda Yurub maadaama intaan wadada garoonka waa u jeedaan ay isku keentay oo u maleyseen istaadi Muqdisho barisamaadkii la joogo marka dadweynaha kale oo qaaradaha kale ku kala nool waxaan leenahay Sweden ha lagu daydo ciyaarahan waa ciyaar maartay waxaan hadaan isdhaahno waa kooxdaas qaadayso ilaa hadda lama saadaalin karo laakiin waxaan rajaynaynaa inay qaadi doonto koox ka imaada UK oo isla wato waa tahay waxaa garabkayga jooga Bila Cali sida aad maqlayseen bile maadaama aad tahay guddiga farsamada sidee u aragtaa ciyaaraha maadaama ay furtaan tahay waa aragnaa u tahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore aad iyo aad u mahadsan tahay Mr. Cabdirasaaq Seef waraysigan qaaska aad igala yeelatay maaragtay adigoo ku hadlay magaca TV-ga Somali Channel runtii ciyaarahan waa ciyaaro muhiim ah maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa maaragtay ayaa magac weyn ku yeelanaya maxaa yeelay waad u jeedaa maanta sportiga dunida heerka uu marayo markaana ma aha markii ugu horeysay oo waraysigan oo kale igala yeelato laakiin marar badan waan ku kulanay magaalada London maanta waxaan joognaa ciyaari Stockholm oo marar badan ka soo qayb galnay aniga aniga adigoo waliba ahba maamulka Zuki qolooyin ka tirsan qaasatan qaybta tiknikada runtii ciyaarahan runtii waa ciyaaro aan dhihi karo maaragtay ciyaaro aad iyo aad waaweyn waayo maxay adduunweynaha qaarada Soomaaliyeed dibadda joogto waa meesha kaliya maaragtay ciyaaraha isugu yimaadaan waana xillida xagaa ayaa la dhigaa oo maaragtay Sweden ma aha markii ugu horeysay ilaa iyo sanooyin dhowr iyo 15 16 sano kor ay dhigay waxaan u maleynayaa mustaqbalka maaragtay inay sii weynaan doonto insha Allah taala waxaan jeclaa sanada dambe maadaama sanada 12 koox ay tahay sanada inaan ka dhigno 14 si ay maaragtay gruubada u sinmaan ma sanad Bashir waxaa garabkayga jooga madaxa ama mas'uulka ugu weyn ereyadan ee booliska ciyaarahan inta badan oo nabadgelyada ilaalsho Mr. Arig
Welcome to the Somali channel. I feel very good to be here. It's the third time, the third year that I'm a part of Soki. And Soki is very important for the southern Järva, Spånga. It's a very important thing this summer. But also during the whole year, Soki is doing very important work for the security in the neighborhood and for the youth in the neighborhood. I feel very good. I feel that Soki is a very strong partner for the police, and that this will be 2 weeks with party and good football for the community here. And as you said, a very big part of the community here is the Somali community, and they are very important to us. And Soki is one of the most positive things in this area during the summer. Well, my message to them is to come and watch Soki and take part of the Swedish summer, of course, and have a very good, as they sometimes say, Somali weeks. So come out and join the Soki tournament and watch good football and meet each other. Oh, thank you, Mr. Henrik.